رئيسل وزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أيا waxa uu ku andacoonayaa in Israa'iil ay ku jirto dagaal toddoba furina dagaalkii bishii June dhacay ee Iran iyo Israa'iil oo markii dambe Mareykanku ku soo biiray waxa si weyn loo dareemay tabardarrada nidaamyada difaaca hawada iyo in Israa'iil ay ku jiri karto qatar haddii aysan helin taageero imika waxa soo baxaya tilaabooyin Israa'iil ay ku xoojinayso isbahaysiyo ay samaysanayso har noqoto badda Mediterranean-ka iyo weliba badda Cas arrimahan waxay salka ku hayaan sidoo kale marinada ganacsiga iyo shidaalka iyo gaaska dabiiciga ee laga helay badda Mediterranean-ka haddaba xulafadan Israa'iil cusub ee Israa'iil ay samaysanayso maxaa laga ogyahay ujeedada ka dambaysa iyo macluumaad dheeraad ah oo arrimahan ay la xiriira ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin madaxdeeha oo macluumaadkan soo ururiyay ayaa qadka ku jira maxamed inoo bilow warbixintan iyo ciwaankeedaba sidee Israa'iil u ballaarinaysaa xulafadeeda iyo sidee u bedelaysaa caqiidadeeda xagga ammaanka kadib markii ay gashay dagaalka marinka Gaza ayaa wuxuu dabool ka qaaday isbedel weyn uu ku yimid xulafadii ay Israa'iil lahayd iyo hadafyadii ay gobolka bariga dhexe ka lahayd waxayna dib u naqshadaysay arrimaheeda amniga iyo mudnaanta militarigeeda waxayna sii ballaarisay goobaha ay militarigeeda ka howlgeli karaan oo ka baxsan xuduudadii colaadeed ee hore loo aqoon jiray sida lagu soo xiganayo warbixin uu qoray suxufiga la yiraahdo Jacfar Salamat ayaa waxa uu sheegayaa arrintani waxa ay salka ku haysaa xulufaysi muddo badan soo socday dagaalkan intii ka horeysay waxa ayna Israa'iil ku guuleysatay in ay heshay fursad aan hore u jirin ayna dardar gelisay ilaa iyo wixii markaas ka dambeeyay iskaashiga xagga militariga Israa'iil iyo Greega iyo Qobrus waxa uu soo bilowday 2010kii taana waxa ay daba socotay in uu hoos u dhacay xiriirkii Turkiga iyo Israa'iil ka dhaxeeyay kadib markii la weeraray maraakiibtii la oran jiray maraakiibtii xurriyadda ee la rabay in gargaarka lagu geeyo marinka Gaza iyo markabkii kale la oran jiray Mavi Marmara waa gartay waayahay maxaa kaloo ka jira wararka sheegaya ama warbixintu maxay ka sheegaysaa in arrintan isbahaysiga ay samaysanayaan Greega Qobrus iyo Israa'iil ay salka ku hayso gaaskan dabiiciga ee imika laga helay badda Mediterranean-ka bariga badda Mediterranean-ka ayaa waxaa laga helay gaas badan oo dabiici ah saddexdan dal Greega Qobrus iyo Israa'iil ayaa danahooda ay isku mid noqdeen taasoo horseeday in ay dhisaan iskaashi xagga amniga ah iskaashigan waxaa ka mid ah inay iska kaashadaan xagga cirka xagga badda dholotusna isla sameeyaan iyo inay isku dubaridaan xog ururintooda iyo heshiisyo xagga hubka iyo teknolojiyada militariga ah waxaana cinwaan looga dhigay in wadajir loo difaaco danaha saddexdan dal lana dardargeliyo awoodooda ay ku cabsi gelinayaan gaar ahaan xiisadan kasoo cusboonaatay xagga Turkiga hase haatee dagaalka Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza ayaa waxa uu calaamadeeyay isbedel weyn iyadoo dardargelisay howlaha militariga Israa'iil inuu dardar galo laguna ballaariyo aagag cusub oo noqday kuwa isbedel ku keenay caqiidadii amniga Israa'iil waa gartay maxaa loola jeedaa maxamed marka la leeyahay Israa'iil waxay qaadanaysaa siyaasad ah ka hortag intii ay difaac ku jiri lahayd warbixinta ayaa lagu xusay Israa'iil inay ku dhaqaaqday siyaasad ah inay ka dhaqaaqday siyaasadii ahayd xoog wax ku maquuni ay u bedeshay hadda cabsi gelin iyo in ay go'doomiso cadowgeeda haddana waxa ay qaadaysaa tillaabooyin ka hortag ah iyo inay awooddeeda amniga ay ku ballaariso meelo ka baxsan xuduudkeeda marka la fiiriyo waxaa loogu yeeray dhinacyada istaageeraya ama jabhadaha istaageeraya sida ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tilmaamay 7 dagaal ayaa Israa'iil ama 7 aag ayaa Israa'iil ku furan marka xaaladaas la fiiriyo Israa'iil ayaa sheegtay
in ay dagaal ku iclaamisay Lubnaan. waxay sidoo kale ay bartilmaameedsatay kulankii ay lahaayeen madaxda ururka Xamaas. sidoo kale dagaal siyaasadeed ayay Turkiga kula jirtaa oo joogta waxaana sidoo kale ay ka faa'iiday taageerada ballaaran ee Mareykanka taasoo suuro geliyey xataa Mareykanka laftigiisa inuu goobihii nukliyeerka kaabayaashii nukliyeerka ee Iiraan uu wax ka duqeeyo taasoo khatar weyn loo arkay. waa garta dagaalkan kale ay ku jirto Israa'iil Xisbullah iyo Xamaas iyo xogaha la xiriira qatarta ay u aragto Xuutiyiinta inay leeyihiin waxay warbixintu ka sheegaysaa. Israa'iil ayaa sidoo kale raadinaysa in hub ka dhigto ururka Xisbullah ee ku sugan wadanka Lubnaan waxayna dardar gelisay xadgudubyada ay sidoo kale ku sameynayso koonfurta galbeed ee Suuriya si ay u abuurto saldhigyo military halka ururka Xuutiyiinta Ansaarullah ee dalka Yemen uu weli weerarayso sababo la xiriira doorka uu ku leeyahay carqaladaynta badda cas iyo weerarada Israa'iil gantaalada iyo diyaaradaha droniska la soo tiigsanayo. dhaqamada noocaas ah ayaa lagu xiriirinayaa in Israa'iil ay aragtideeda ballaarisay iyadoo Netanyahuna uu ka hadlayo in isbedel uu ku imaanayo gobolka Bariga Dhexe iyo asagoo wada dadaal oo rabo inuu dalal cusub ku soo biiriyo heshiiska Abraham loo yaqaano oo lagu caadiyay xiriirka wadamada Carabta ee Israa'iil leeyihiin in dib loo qaabeeyo awoodda gobolka Bariga Dhexe. waa gartay waa yahay haddii aynu ku sii soconnaa warbixinta Maxamed waxaa moodaa in macluumaadkan oo dhan ay isku dayeysay Israa'iil inay waxay u arkayso cadow ay wiiqdo barino faahfaahin dhankaas waxa warbixinta ay ka tilmaamayso. warbixinta ayaa xusaysa istiraatiijiyadan ayaa qayb ahaan guulo u soo hoyeysay Israa'iil iyadoo Israa'iilna ay wiiqday baa leeyahay qaar ka mid ah cadowgeedii iyadoo aan awood u yeelan inay ka takhalusto cadowgeeda hase ahaatee awoodaha gobolka ayaa bilaabay inay xisaabaadkooda dib ugu noqdaan xoojiyaan isxulufaysigooda xagga difaaca waxaana hadda furmay albaab cusub oo weji kale oo miriqsan ayaa gobolka ka soo food leh waxaana xusid mudan in hoosta laga xariiqo in Israa'iil ay ku dhawaaqday dhowr maalmood ka hor inay si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland oo ay sheegtay inay tahay dal madax bannaan halka Carabta iyo gobolka Bariga Dhexe iyo dalalka caalamkana ay si dhaqso ah cambaareen weyn ugu soo jeediyaan baaqaas Israa'iil ka soo baxay. waa gartay arrinka la xiriira isbahaysiga Griiga iyo Turkiga iyo Khubrus haddaynu dul istaagno Israa'iil iyadoo Xuutiyiin aan ka guuleysan Xisbullahna si fiican aan uga guuleysan inkastoo hogaamiyaal badan laga dilay Xamaasna weli Mareykanka Gaza in badan oo kamid ah gacanta ay ku hayso oo saraakiisha Israa'iil ay qirsay in dagaalka lagu guuleysan xiisadan Turkiga la xiriirta ma waxay macnaheedu yahay inay u baahan tahay isbahaysi oo aysan iskaga aadin haddii xaaladdu faraha ay ka baxdo. Israa'iil muddo dheer ayay wax ka shaqeynaysay inay xiriir xagga militariga la yeelato iyo dano isku tiirsan Griiga oo cadow u arka Turkiga iyo Qubrus oo u aragta wadankeeda qayb ka mid ah in uu Turkiga xoog ku degan yahay iskaashigaasi saddexdaas dhinaca ayaa waxaa la leeyahay waxaa la rabaa in saameyn ay ku yeeshaan inuunan Turkiga u gacan bannaan bariga badda Mediterranean-ka uu dhowaan gaas fara badan ka helay saddexdan dal marka la fiiriyo si kastoo ay awoodooda isugu biiriyaan sida qabiilada madaxa bannaan ay hadal ku dhigayaan Turkiga uma babac dhigi karaan laakiin Israa'iil ayaa waxaad moodaysaa in ay rabto in ay Turkiga ku qasabto waa sida hadalka loo dhigay in mowqifka ku aadan Israa'iil iyo marinka Gaza ay wax ka bedesho iyo wadanka Suuriya waxaan kaloo aydan meesha ka dheerayn Suuriya Israa'iil waxay rabtaa in la kala qaybiyo Turkigana wuxuu rabaa Suuriya oo hal dal ah in xukuumadda uu taageero Israa'iil sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan ma ogolaanayso in Turkiga uu Suuriya deegaanada uu ka joogo uu ballaariyo Gazana uu ka mid noqdo ciidamada
xasiloonida ee caalamiga ah waxaadna moodaa Israa'iil in ay isku dayeyso inay isticmaasho siyaasad ay ugu hanjabayso kuna cabsi gelinayso Turkiga laakiin khabiirada qaar ayaa waxay leeyihiin Turkiga maaha sida wadamada Carabta ee dariska la ah wadanka Israa'iil Turkiga waxa uu leeyahay awood aad u ballaaran xagga militariga waxa uu ka tirsan yahay NATO waa ciidanka labaad ugu ballaaran marka Mareykanka laga saaro NATO Turkiga waxa uu soo saaraa qalab militari oo aad u fara badan diyaaradaha droniska ahayn oo ay ugu caansan tahay Baghdad iyo diyaarado kale oo casri ah gantaalo ayuu hadda samaysanaya Israa'iil laftirkeeda ayaa la dhacsanayn Turkiga inuu heshiisyo istiraatiiji la galay Soomaaliya oo uu rabo inuu dayax gacmeedii ka rido ay leeyihiin gantaalo ridada dheer ayuu tijaabsanaya khabiiradu waxay tilmaamayaan Israa'iil uma badna in ay Turkiga dagaal la geyso haddii dagaal la gashana waxa ay noqonaysaa bilowga dhamaadka waa sida hadalka loo dhigay Israa'iilna waxay ku andacoonaysaa Turkiga inuu rabo inuu soo nooleeyo dowladdii Cuthmaaniyiinta ee 100 sano ka hor dhacday waa gartay waayahay dhinaca kale markaynu ka eegno Israa'iil xuluf ay samaysanaysaa iyadoo markii horena wadamada Carabta heshiis la gashay Abraham waxa loogu yeeray heshiiska loogu yeerana ay ku soo beereen wadamo kale imikana Greek ilaa iyo Khubrus ay isbahaysi la samaysanaysaa laakiin Turkigu soo laba oran karo go'doon baa la gelinayaa oo kaligiis weeyaa xulufana ma leh marka laga tago NATO laakiin Israa'iilna ay la tahay xulufo inkastoo aysan xubin ka ahayn NATO Turkiga shacabkiisa 90 milyan ayuu ka badan yahay Khubrus iyo Israa'iil iyo Greega haddii la isku dayo kulligood haddii la isku daro uma wax dhigi karaan Turkiga taariikh ahaanna Turkiga dagaal looma bilaabo oo dadkiisa waa dad mitid ku ah xagga dagaalka waa laga baaqsadaa waa wadan cajuusa weeye oo muddo badan adduunka talinayay Israa'iil waxyaabaha ay uga baqayso Turkiga waxaa kamid ah haddii uu yimaado marinka Gaza ama isxulufaysiga saddexdan dal Khubrus Israa'iil iyo Greega saameyn weyn kuma yeelan karo wadanka Turkiga 90 milyan ayuu shacabkiisa ka badan yahay wadamadanna waa og yihiin inuu wadankan yahay wadan cajuusa 400 sano ayuu Greega xukumayay wadanka Turkiga Khubrus qaybta waqooyi 74 ayuu xoog ku qabsaday ilaa ay haddeertaana waa jamhuuriyadda kaliya caalamka oo dhan ma aqoonsana Turkiga ayaa aqoonsan cid u tagi karta lama arko Israa'iil marka hadda waxa ay isku dayaysaa Turkiga in ay handado laakiin handadaadaasi waxaas oo dhan shaqayn maayaan waxaana muuqata siyaasadda Israa'iil ay ku diideyso in Turkiga isku ballaariyo Suuriya Gazana yimaado waxay diideysaa in ay laba dhinac dhanka Mediterranean-ka oo Gaza ana in Turkiga uu joogo oo ciidanka xasilinta ka qayb qaata dhinaca Suuriyana uu ballaariyo goobihii uu hore u joogay oo uu wadanka oo dhan isku dumo marka waxaa muuqata Israa'iil in ay xaalad khatar ku jirto waxa ay sameeynaysan Turkiga ma mooga dhowr goor oo mas'uuliyiinta Turkiga ay hadleena mowqifkooda inuu wax iska bedelayo ma muuqato waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa